waxaan arrintaasi wax ka weydiinay xadhiga qoyska wasiirka hore wasaaradda caafimaadka Somaliland Dr. Salebaan Ciise Axmed Kaar Xagla Toosiye isla daktarka Dr. Xagla Toosiye gore ku soo dhaw Bulsha TV wasiir waxa nagu maqaala oo ama waraysiga la yeelanayaan oran maqaale ee qoyskaaga oo ku xiran gobolka Togdheer ma noo sheegi kartaa ujeedada xadhiga qoyskaaga wallahi anigu dee daawurta iyo weerkayga waan diray xagga laascaanood baan u diray haye laba gaari waan diro inay reerkayga sii qaadaan haye odayaalna soo qaadaan haye haddana waxaa igu maqaalaa in reerkaygina meel la geeyo war kama hayo haye daawurtiina waxaa lagu yiri waxay ku xidhan tahay iyo darwariintii la socotay iyo askartii la socotay talaska qaybta haye marka ujeedada ku xidhan miyaa lagu sheegay cidda ku soo waran may waxaan markii la isoo sheegay la hadlay qaranka ciidanka booliska ina fadal waan gartay waxaan kugu soo celinayaa dhowr jeerna waan la hadlay intii ka dambeysay markii igu soo celin waayay ha mararka qaarna waa igu dhigay waan gartay intii ka dambeysana iga hadli waayay wasiir Salebaan Ciise Kaar Xagla Toosiye waxaad ka mid ahayd wasiiradii ugu saameynta badnaa ee xukuumadda madaxweyne Axmed Silaayo gelinka hore maanta bay ahayd markay soo baxday digreeto lagu magacaabay golo wasiiro cusub oo soo dhisay madaxweyne Muuse Biixi ma jirtaa wax hore u jiray ama xilfatan ha ahaato ama caro hore wax hore u jiray miyay jiraan oo laga yaabo in qoyskaaga waqti xadirkan loo haysto wallahi garan maayo madaxweynihii hore aniga magacaabay mudane Axmed Maxamed Silaayo aad ugu mahadcelinayaa wuxuu ahaa madaxweyne weyn oo taariikhdu dhigi doonto haye madaxweynaha cusub ee Muuse Biixi saaxiib baan nahay dhibaatana nima dhexeeyo waad ogeydeen waana arkayseen inaan ugu ololeynayay una arkayay inuu ahaa xal daleed waan gartay marka wax dhibaato dhexdooda yaalay aniga iyo muusaha cusub waan gartay ma jirin wax reerkayga iyo baabuurtada lagu qabsadana garan maayo kulliga waktigaa sheegaya wasiir Muuse cusub baa tiri Muuse cusub maxaad uga jeedaa madaxweyne Muuse madaxweyne Muuse Biixi ha laba nin oo badowa aniguna badow waan isla waa badow waan gartay saaxiibna waan nahay haye dawladdu dhisay ha waxba hadda ka sheegi maayo waan gartay waana ugu hambalyeerayaa waan gartay laakiin isaga weydiin waxa baabuurtada iyo qoyskayga lagu haysto marka waxaad soogan kartaa xagga madaxweynaha xafiiska madaxweynaha ka timid saas u badanta aad baad mahadsantahay wasiir